magacaygu waa Shiine runtii ka mid ah dhalinta waayaha cusub waxaan joogaa mar kale magaalada New York anoo ka soo laabtay saaka ka soo galay magaalada Washington oo aan ku qabanay programka weynaa ee ka dhacay Kennedy Center aha program aan ku barnaamijgareynay Somali Sunrise oo qorax cusub ee Soomaaliya waxa ka horeeyay program saas kala manasata aan ku qabanay Minneapolis aan ku qabanay iyo meelo kale Mareykanka laakiin programka ugu horeeyay weynaa waxaan ku furnay magaalada Washington xarunta Kennedy Center waana markii ugu horeysay hoolka Kennedy Center oo hoolasha ugu weyn caalamka ay Soomaali ka bafan markii laga taagana aawana waxaan taagnahay New York aniga iyo waayaha cusubtan ee Mareykanka joogta sidoo kale waxa aawana wada bafan garan doona fanaaniin Mareykana iyo wali walaalkan qaaliga keenan horta waqti nala qaadan doona si aanu u wada taageerno nabadda iyo programka Somali Peace Sunrise aan ku faraxsanahay waxaan rajeynayaa in shaqo fiican aan qabanay shaqada badan waxa u taalaa oo runtii laga sugayaa waa waayaha cusub iyo Nairobi xagga shaqada badnaa joogay waa dadaalnay anagu waanu soo iftitaxnay programkii waanu soo barnaamijgareynay shaqadii ugu horeeyay Canada iyo New York soo baarka Kennedy Center Washington iyo New York kala qabanayna laakiin faano la farqi kama qodna shaqada waxa hadda wareegi doonta waa dhanka waayaha cusub ee Nairobi runtii aan rajeyn inaan kala qayb qaadano waliba diyaar ah u nahay soo dhawaada